بسم الله الرحمن الرحيم magacay wabaashi cala xaashi oo kamid ah wakiil wareedyada warbaahinta qaranka ee gobolka Mudug kaga soo warrama waxaan ka hambalyeeynaa oo muwaadiniinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan la wadaagaya sanad guurada 38aad ee aasaaska telefishinka qaranka iyo sidoo kale sanad guurada 10aad ee dib u howlgelintii telefishinka qaranka waxaan leeyahay saaxiibada naga daawada daafaha dunida aad baa u mahadsantiin waan kaga mahadcelinaynaa sida u daawataan wararkii barnaamijyada telefishinka qaranka waxaan ila wadaagaynaa waa ku faraxsanahay inaan ila wadaagno sanad guurada labada sanad guuro ee telefishinka qaranka oo mar kasta soo wariya arrimaha khaaska ah ee qaranka Soomaaliyeed iyo danaha iyo baahiyada muwaadiniinta Soomaaliyeed meel kasta oo dunida ka joogaan waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa saaxiibada ka wada tirsanahay telefishinka qaranka meel kasta oo dunida ka joogaan waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa wariyaasha warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa jooga waxaan la qaybsanayaa marxaladda ay ku shaqeeyaan oo aad u adag oo anaguba qaybaan ka ahay waxaan leeyahay saaxiibayaal mas'uuliyad weyn ayaa u haysin muwaadiniinta Soomaaliyeed waad mahadsantihiin dadka Soomaaliyeed ee daawada mar kasta daneeya telefishinka qaranka Soomaaliyeed ku xiranna waxaan leenahay waa hambaliyo meesha naga daawanaysin mas'uuliyiinta kala duwan wasaaradda warfaafinta Soomaaliyeed waa u mahadcelinayaa waxaan si gaar ah ugu tacsiyeenayaa saaxiibadii warbaahinta qaranka Soomaaliyeed iyo guud ahaan wasaaradda warfaafinta Soomaaliyeed soo maray dhintay siyaabo kala duwan u dhintay jannadii firdawsaha ka waraabiyo aad baa mahadsantihiin mar kastana waxaan ku shaqeyn doonaa dadka Soomaaliyeed baahiyada ay qabaan iyo rabitaankooda iyo danaha qaranka Soomaaliyeed